geedigii intuu hanad gorgora gudurugu jiiday iloo gasaase wiilaynu garanayno jeragoontu geedi dhiig ku baxay goosan midhihiisa u guboobay ruuxii ka gudaraadka geesigaye haddii godolka aayaa midnima looga jiro gaaga garwaqsada dadkaygow inaan gacan sarraydo kusoo dhawo Bakar Media walaal magaca دوي مقعي واتقني محمد قادر ودوي بكر ميديا soo dhawo mar labaad caawa su'aalaha haynana waxa kamid calanka ogaadeynaya waqtiga la aasaasay ma garanaysaa ها كون سجال بقول سديتي أفريقي 1984 waa saxda calanka ogaadeynaya meeqa kala ka kooban yahay سدح كلر saddexda noo kala sheeg عقار لوب maxaa la jiray ONLF oo macnaheedu fuul ma garanaysaa ها وأوغادينيا ناشونال ليبريشن فرونت aad iyo aad soo dhawo waa mahadsan tahay aadan kaa mahadcelinaya sida noogala qayb qaatay waraysi quruxda badan دوي okay thank you kusoo dhawo Bakar Media magaca walaal saaxiib waan dhowahay aad iyo aad aan ku salaamayaa Bakar Media iyo dhammaan bulshada daawanayso magacayga waxa la yiraahdaa Barwaaq Xasan okay caawa su'aalaha haynaa maadaama ay tahay habeenka ogaadeynaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo calanka ogaadeynaya waqtiga la aasaasay ma garanaysaa niyow waqtigaas waa garanaya haa waxaa la aasaasay 1984 1984 sax waa saxday su'aasheeda labaad waxay tahay calanka ogaadeynaya meeqa kalar ayuu ka kooban yahay walow aan aad u sii fiirsanin haddana waxaan filayaa inuu ka kooban yahay saddex waa saxday saddex ma noo kala sheegi kartaa iyo macnaha ay ku fadhiyaan ها سان قياسيو قف إيه معنى ياد كور مجرته لكن وحن قياسيا جدودك وحكو ترجمة يا إن محاكورة جوبنيماتونكا يهلجنكا إن عقار كنا وحكو ترجمة يا محاكورة ذا وناقة أما برواقة ذا يا هذا إفعالها وناكسن أردن كلا أو عرك هواك أسجنا وحكو ترجمة يا علامة صومال النمو صوتها bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ogaadeen ha noqoto maxaa ku raada Kenya ha noqoto ama wadamada kale ha noqoto dadkaas yaani waxay ku hirtaan oo markasta ay ku faanaan Soomaali weyn su'aashada ugu dambaysa waxay tahay ONLF macnaheedu oo fuul ma noo sheegi kartaa ONLF macnaheedu fuul ah inaan kala dhigdhigo ma rabi laakiin macnaheedu waa cad yahay sababtoo ah waa urur gobonnimadoona kana shaqaynayo xil badan iska saaray dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan yaani khaasatan ogaadeenaya inay hesho xornimo buuxda oo ay caalamka wax la qaybsadaan ururkaas runtii dadku waxay u malaynayaan inuu iska yahay maxaan ku raadayay ururada iyo xisbiyada la mid ah laakiin dhamaan markaan u fiirino waa ka duwan yahay ururkaas wuxuu dhaxal ka yahay halgan dheer oo ummadda Soomaaliyeed ay soo waday geeska Afrika ay ku deganayd iyo saldanado badan oo aynu haysanay ayaa waxay u tahay dabayaaqo maxaa ku raadayay laga soo bilaabo 1200 taariikhda markay ahayd ilaa iyo maanta halgan soo jiray ayay u tahay maxaa ku raadayay ay ilaalinaysaa taas markii laga soo gudbo waliba maanta waxaa ahmiyad ah munaasabadda maanta aan joognay inay ahayd 40 guuradii runtii waxaa la odhan karaa yacni waxay sameeyeen dhabar adayg ayagoo aan ognahay yacni caqabadii badnaa oo la soo maxaan ku raadayay bulshadaas ay la soo darisay haddana alxamdulilah waxaan rajaynaynaa guul si kastaba haatee xornimo ayaan sugaynaa insha allah magaceedu waxaa la dhahaa sonko magacaada saxda maxaa magaciisa saxda waxaa la dhahaa Xudayf Axmed Cabdi okay su'aashada koowaad aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay calanka ogaadeynaya goorta la aasaasay ma garanaysaa calanka ogaadeynaya waxaa la aasaasay 1984 sanadkii ku ahaa 1984 okay waa saxday su'aashada labaad waxay tahay calanka ogaadeynaya meeqa kalar ayuu ka kooban yahay calanka ogaadeynaya wuxuu ka kooban yahay afar kaloo ka kooban yahay iyo guduudka iyo cadiinka cadaanka way iswataan buluuga si loo qaatana waxay noqonaysaa calanka cirka camal aad iyo aad
su-aasha ugu dambeysa inaan ku horeysto waxay tahay ma garanaysaa ONLF waxay u fadhida macnahay ku fadhida macnaha ONLF waxaa weeyaan Ogaadenia Nation Liberation Front. Ogaadeen National Liberation Front. Ogaadeen National Liberation Front. aad u macsanta calanka ka dhacay soo dhow mar labaad waa dhow asxaabay intaan iga salaama inta waxa ka salaama hooyaday macaan oo Shamso iyo walaalkay aan ka salaama waana ku dhawaa channelka insha Allah. Okay aad u macsanta ku soo dhow Bakar Media walaal waxaa la magacayga Daahir Maxamed baa la dhahaa magacayga walaal waxaa la Daahir Maxamed soo dhow mar labaad caawada waxa ka soo qayb gashay dabaaldegii sanad guurada afartanaad ee calanka Ogaadenia waxaan rabaa su'aalo ku saabsan inaan kureysto diyaarad taan fila diyaar baan inaad waraysato diyaar baan su'aashada koowaad waxay tahay calanka Ogaadenia goorta la asaasay ma garanaysaa aad baan u garanayaa 1984 ayaa la asaasay calanka Ogaadenia okay su'aashada labaad waxay tahay calanka Ogaadenia inta kale ku kooban yahay ma la socota aad iyo aad baan ula socdaa sababtoo ay tahay waan xiranahayba wuxuu ka kooban yahay cagaar iyo buluug iyo guduud cagaarka oo u taagan barwaaqada waddankeena iyo guduudka oo u taagan isagana halgankii iyo dhiigii la soo shubay iyo buluugga oo u taagan isagana sumadda Soomaalinimo su'aasha ugu dambeysan ku weydiinaa waxay tahay waxay ka macnaysanta ma garanaysaa ONLF aad iyo aad baan u garanayaa sababtoo ay tahay waxaan ku jiraa dadkii ku ambaqaaday ee ku caqliyeystay jamhadda oo dagaalamaysa oo mataqaanaa u dagaalaysa xorriyadda ilaa haddana waxaan waqtigayga uu ku sii soconayaa aniga halganka oo la sii wado kol qori baa lagu waday haddana qalin baa lagu wadaa waxaanan aaminsanahay calamada way fara badan yihiin oo hadda waxaa la iska samaystay qolo kasta calan bay samaysatay calanka laakiin macno weyn buu ku fadhiyaa calan loo soo dagaalamay weeyaan calan mataqaanaa hooyooyin iyo walaalo iyo cid kasta loo soo laayay weeyaan waa calan calamada kale ka duwan marka munaasabadiisa caawa weliba waxay ka duwan tahay munaasabadaha kale habeenkii la aas-aasay wiilkii dhashay wuxuu caawa u 40 jirsaday wuxuu qaadi karaa xil madaxweynenimo ayuu qaadi karaa marka aad baan wallahi u faraxsanahay dadka maadaama oo xamaasadda caawa aad iyo aad u qaadaysay waxaan leeyahay Ogaadenia jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadenia hambalyo ayaan leeyahay kun jeer hambalyo ayaan leeyahay idinkana waad mahadsantihiin